dadka iyo hay-adaha helay abaalmarinta muqdisho awaad waxaa ka mid ahaa cali axmed oo ah 12 jir ku shaqaysta miisaanka dadka idaacadda kulmiye iyo wariye nasr bashir cali oo ka tirsan warbaahinta qaranka una qaabilsan xafiiska ra'iisul wasaaraha kuwaas oo lagu bagaadiyay wax qabashada bulshada iyo adeegyada danta guud. Naaji Axmed Maxamuud waa gudoomiyaha abaalmarinta muqdisho wuxuu sheegay in barnaamijkan ay u talagaleen in lagu abaalmariyo dadka dadaalay u baahan in la dhiirigeliyo. abaalmarintan waxa u qabanay in aan abaalmarino bulshooyinka Soomaaliyeed ee waliba gaar ahaan ku nool magaalada Muqdisho in dadkii guuleystay ee sanadkan waxa la muuqda ka qabtay magaalada in aan abaalmarino dhiirigelino oo si aan u helno dad kale oo ayakana ku dhiirada oo firfircooni iyo kalsooni dheeraad magaalada loo helo. Aamina Badar Khaliif waxay ka mid ahayd guuleystayaashii abaalmarintan nasiibku u yeeshay waxay sheegtay inaysan filayn guush ay gaartay maanta balse dadaalkeedu ay sii laba doonto. ma filanaynin in guushan si dhaqsi leh ku gaari karo laakiin waxa aad ugu faraxsanahay guusha maanta gaaray waan rajaynaa mid ka sii badan in gaaro. Cabdullaahi Goomi gudoomiye ku-xigeenka abaalmarinta muqdisho waxa uu sheegay in sida loogu talagalay u qabsoontay hawshan dadka Soomaaliyeedna ay yihiin hal abuurayaal. Waxa codaysay in ka badan ama ku dhow 1 milyan oo qof oo Soomaali ah oo u badan dadka degan gobolka Banaadir dadka ku dhaqan gobolada kale ee Soomaaliya Soomaalida ku dhaqan caalamka codayntaasi waxay ahayd mid online ah toos ah qofka hal mar kaliya uu codayn karo mar labaad uu san codayn karin systematic ah soconaysay hal usbuuc waxa ugu dambeyn soo baxay 16 guuleyste. mashruucan waxa maalgelinayay maamulka gobolka Banaadir si loo dhiirigeliyo dhalinyarada Soomaaliyeed taasoo gudoomiye Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Jiriso ku muteystay abaalmarinta waxaana sheegay in maamulka gobolka uu diyaar u yahay horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed. anaga maamulka gobolka Banaadir waxaan uga baahnaa garab istaag dhalinyarada hal-abuurka leh dhalinyarada u istaagaysa inay horumar iyo caasimada iyo dalkaba kaalin ka qaataan. intaas ka sokow bacdama sanadkii 2018 hadda laga dhamaanayo waxaan galaynaa sanadka 2019 waxaan leenahay sanadkii 2018 ilaaha nooga dhigo sanadkii runtii qaar ka qabay isla markaana rajaynayna sanadka 2019 inuu noo noqdo sanadkii aan wax badan oo hiigsanaynay aan gaarno. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa u hambalyeeyay wariye Nasr Bashir Cali oo ah wariyaha kaliya ee helay abaalmarinta muqdisho ee sanadka 2018. Nasr Bashir Cali oo caawana ku guuleysatay hadiyad ama wax la yiraahdo Muqdisho Awards wariyaha sanadka ugu wanaagsan. sidoo kale waxay ku guuleysatay hadiyad xafiiska ra'iisul wasaaraha oo la siin doono oo shaqada wanaagsan ee qaranku hayso. Nasr waa mahadsantahay. Cabduqaadir Cali Axmed warbaahinta qaranka Muqdisho.